xaflad quraan oo lagu dhiirigelinaya arday dhameystay 30 juz ee quraanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. xafladan oo ay qabatay akaadimiyada Khalifa Ankara ayaa waxaa lagu dhiirigelinaya ardayda kale ah Muzammil Xasan Sabriye, Salmaan Cabdiraxmaan Maxamed iyo Mudathir Xasan Sabriye. ardaydan oo dhameystay 30 juz quraanka ay akaadimiyada waxay u qabatay xaflad dhiirigelin ah. xafladan oo ay soo abaabuleen waalidiinta ilmaha dhalay. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti kala duwan, culimo, arday jaamacada iyo dhammaan inta badan waalidiinta iyo ardaydii madrasada. xafladan ayaa laga jeediyay kalimaad ka kooban laguna dhiirigelinaya ardaydaasi quraanka kariimka dhameystay, laguna dhiirigelinaya inay sii wadaan juhdigooda quraanka iyo barashada diinta islaamka. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. markan waxaa hawlka lagu soo dhaweynayaa ardaydii quraanka dhameysay, halka xiriiriyaha barnaamijka Ustaad Maxamed uu ku dhawaaqaya magacyadooda saddexan. ardayda marti sharafta waxay muujinayaan sacab, farxad iyo soo dhaweyn aad u sareysa. waalidka meesha fadhiya iyo dhammaan macallimiinta ayaa ku faraxsan maanta inay tahay maalin weyn. markii loo fiiriyo dhalinyaradaasi waxay u tahay maalin taariikhi ah oo maalmahooda ka mid ah. dhaqankeena islaamka iyo dhaqanka Soomaalida ayaa ah in maalin ilmaha quraanka la dhameeyo loo sameeyo xaflad dhiirigelin ah oo la dhahay maalintaas quraanka dhameeyay wiilkayga. waalidkana waxay Alla ka rajeeyaa subxaanahu wa ta'aala in maalinta qiyaamaha loo sura taajka loo yaqaan taajul xufaad, halka macallimiintana Allah subxaanahu wa ta'aala ay ka rajeynayaan kuwa ku tilmaaman kalaamka nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. gabagabadii gunaanadkii kulankan cibaadada oo lagu dhiirigelinaya ardayda quraanka dhameysay kalaamka Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa waxa kalimaad ka kooban oo dhiirigelin ka jeediyay iyo bogaadin waalidiinta qayb ka mid ah, culimada, ardayda iyo marti sharafta. الحاج عباس oo kamid ah dadka ugu daada weyn ee maanta ka soo qayb galay xafladda ayaa ka jeediyay kelimada gabagabadeeda ducada khatimka quraanka una duceeyay ubadkii quraanka meesha ku khatimay iyo waalidiintii macallimiintii oo idil. يا حافظ القرآن طبت مكرما وحفظت من شر الأنام مسلما فالقلب يهفو بالتلاوة مضطربا أسمع بصوتك تحية الرحمن